Shiinaha iyo Afrika waxay leeyihiin xiriir soo jireen ah oo ku saleysan dhanka ganacsiga iyo horumarinta kaabayaasha. Shirkii ugu dambeeyay ee ka dhacay caasimadda China ee Beijing bishan September sanadka 2024 wuxuu ahaa mid muhiim ah oo diiradda lagu saarayay dhinaca iskaashiga ee Shiinaha iyo Afrika. Madaxweynaha China Xi Jinping wuxuu ballan qaaday in $50 bilyan inuu ku maalgashan doono qaaradda Afrika. Madaxweynaha China wuxuu iskugu yeeray in ka badan 50 madaxweyne oo Afrikaan ah uuna ku casuumay caasimadda China si ay uga wada hadlaan iskaashiga dhanka China iyo qaaradda Afrika. Muuqaalkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa iskaashiga u dhexeeya Afrika iyo China, dhibaatooyinka uu leeyahay iyo waxyaabaha ay ka faa'iidi karaan qaaradda Afrika. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Fadlan daawade intaynan guda gelin muuqaalkeena maanta, haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddaad horey nala joogtayna fadlan muuqaalka like saar oo la wadaag asxaabtaada. Shiinaha iyo Afrika waxay xiriir dhanka diblomaasiyadda ah lahaayeen tan iyo 1950-yadii, xilligaas oo uu Shiinuhu taageeray dhaqdhaqaaqyadii gobonimo-doonka ahaa ee Afrika. Muddooyinkii dambe, xiriirkoodu wuxuu isku beddelay mid dhaqaale iyo ganacsi, iyadoo Shiinaha uu noqday saaxiibka ganacsi ee ugu weyn qaaradda Afrika. Laga soo bilaabo 2009kii, waxaa la sameeyay iskaashiyo ballaaran oo dhanka dhaqaalaha iyo dhanka amniga oo Shiinaha uu ku soo galayay qaaradda Afrika. Shirka lagu qabtay caasimadda China ee Beijing bishan September sanadka 2024 wuxuu xambaarsanaa mowduucyo iskaashi ah oo wadajir ah, mustaqbalka wadajirka iyo casriyeynta oo diiradda lagu saaray. Waxaa kaleeto diiradda lagu saaray wadajirka labada dhinac iyo kor u qaadidda iskaashiga dhaqaalaha. Shirkan waxaa ka soo qayb galay 53 waddan oo Afrikaan ah, 51 madax dawladeed. Halku-dhigga shirka sidii loo dhisi lahaa bulshada Afrika iyo Shiinaha ay wadaagaan mustaqbal sare. Shirkani wuxuu diiradda saarayay dhowr qodob oo muhiim ah. Madaxweynaha Xi Jinping wuxuu ballan qaaday $50 bilyan inuu ku maalgashan doono qaaradda Afrika, halka 30 mashruuc ay ka socdaan qaaradda Afrika uu wado Shiinaha. Waxaa kaleeto ka mid ah sidii loo hagaajin lahaa wax soo saarka dhanka beeraha, maadaama China uu ku horeeyo sida loo soo saaro agabyada sida beeraha iyo waxyaabaha la xiriiro abuurka beeraha. Waxaa la isla qaatay in Afrika looga baahan yahay shaqo abuur xooggan oo ay gaarto horumar dhaqaale oo waara, iyadoo Shiinaha uu ku caawinayo horumarka warshadaha iyo dhanka beeraha. Inkastoo xiriirka Shiinaha iyo Afrika uu soo kordhiyay fursado badan oo dhaqaale iyo horumarineed, waxaa jira caqabadooyin waaweyn oo Afrikaanku ay wajihi karaan maalgashiga Shiinaha kadib. Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee soo baxaya waxaa ka mid ah diblomaasiyadda deynta, taas oo ku lug leh dalalka Afrika ee qaata deymaha waaweyn ee Shiinaha, iyadoo aan awoodin inay dib u bixiyaan. Waddamada sida Zambia iyo Ghana waxay ku sugnaayeen xaalado dhaqaale oo aad u adag, taas oo keentay deymihii ay ka qaateen dalka China. Tani waxay keeni kartaa in qaar ka mid ah dalalka ay galaan xaalado ay u baahan yihiin inay bixiyaan hantidooda ama kheyraadkooda si looga daayo deynta lagu leeyahay, taas oo keeni karta inuu dalkaasi u burburo. Shiinaha wuxuu yahay ganacsadaha ugu weyn ee qaaradda Afrika, taas oo micnaheedu yahay in xiriirka ganacsi inta badan uu yahay mid hal dhinac ah, halka Afrika ay iibiso kheyraad dabiici ah laakiin aanan helin faa'iido la taaban karo oo dheeraad ah. Tani waxay horseedi kartaa in Afrika aysan gaarin farsamooyin casri ah ama aysan yeelan dhaqaale oo waara. Maalgashiga Shiinaha inta badan wuxuu diiradda saarayaa mashaariicda waaweyn ee kaabayaasha sida jidadka iyo tareenada, halkaas oo shirkadaha Shiinaha ay inta badan sameeyaan shaqada oo dhan. Tani waxay keenaysaa in dalalka Afrika
si fiican ugu faa'iidaysanin farsamada ama aanay u abuurin shaqooyin badan oo dadka maxalliga ah ay ka faa'iidaysan karaan. Sida muuqata, Shiinaha wuxuu isticmaalayaa maalgashi iyo taageero si uu u helo saameyn siyaasadeed oo weyn oo uu ka dhaxlo mustaqbalka Afrika. Tani waxay keeni kartaa in qaar ka mid ah madaxda Afrika ay noqdaan kuwa Shiinaha ugu tiirsan arrimaha gudaha iyo kuwa dibaddaba, taas oo hoos u dhigi karta madax-bannaanida siyaasadeed ee qaar ka mid ah dowladaha Afrika. Madaxda Afrika waxay si xooggan uga hadleen baahida deyn cafinta iyo iskaashiga maalgashineed ee waara oo loo baahan yahay in la dhex dhigo Shiinaha iyo qaaradda Afrika, taas oo madaxda Afrikaanku ay u horseedi doonto mustaqbalka inay noqdaan kuwa Shiinaha u daba fadhiista siyaasadooda tan dibadda iyo tan gudaha. Sida aynu horey u soo sheegnay, qaaradda Afrika inay noqdaan kuwa u daba fadhiista siyaasadooda dalka Shiinaha. Dhibaatada ayaa horseedi karta in dalalka qaar ay wajahaan xaalado adag oo dhaqaale iyo siyaasadeed haddii aysan maaraynin xiriirka maalgashineed ee Shiinaha ayna uga faa'iidaysanin si hufan. Waxay muhiim tahay in Afrika ay hesho istiraatiijiyadooyin waara oo ay ka heli karto ilo dhaqaale ay ku kalsoonaan karto, mar walbana ay ka heli karto dhaqaale. Waxaa kaleeto oo aanan meesha ka maqnayn dalka Mareykanka, inkastoo reer Yurub ee laga saaray qaaradda Afrika, sida Faransiiska oo markii ugu dambeysay laga saaray dalalka galbeedka Afrika, waxaana ku loolamayo qaaradda Afrika China iyo Ruushka. Sidoo kaleeto Mareykanka ayaa jooga isaguna si uu uga cisto China uusan u urursanin dhaqaalaha Afrika, maadaama Mareykanka uu yahay saacadan aynu joogno dalka ugu awoodda badan caalamka, taas oo u horseeday inuu qaaradda Afrika uu ka qaato dahabka, macdanta, wax walba oo uu ugu baahan yahay inuu ka helo qaaradda Afrika, taas oo Afrikaankii u horseeday inay u daba fadhiistaan Mareykanka wax walba ay ugu baahan yihiin inay u qabtaan dalalkooda. Dalalka Afrika waxaa haysto dhibaatooyin dhaqaale iyo mid tacliinba, halka reer Yurub iyo Mareykanku ay dejiyeen qorshe ah in dhalinyarada Afrikaanku ay barakiciyaan ayna geeyaan dalalka Yurub iyo Ameerika, iyaguna ay usoo doomaraan dhaqaalaha waddankoodii si ay u urursadaan ayna ugu gurtaan waddamadoodii, taas oo u horseeday Mareykanka iyo reer Yurub inay gaaraan xornimo dhaqaale saacadan aynu joogno. Balse taas waa la iskaga daba yimid, waxaana dhinac kale soo galay dalka China oo arkay faa'iidada taasha qaaradda Afrika, taas oo ay dayaceen reer Yurub markii ay ka dhargeen, taas oo China iyo Ruushka u horseeday inay ku loolamaan qaaradda Afrika, gaar ahaan galbeedka iyo bariga. Waa meelaha ugu xasaasisan maadaama ay ku yaalaan marin biyoodyo oo xasaasi ah, sida marinka Baabul Mandab oo uu ku yaalo jasiiradda Carabta iyo Djibouti ilaa Masar, meeshaas oo Ruushka oo uu uga baahan yahay hadda inuu Suudaan uu ka dhisto saldhig military. Qaaradda Afrika waxaa hortaasho laba darar mid dooro inay raacdo reer bariga oo ugu horeeyo China iyo Ruushka, ama inay raacaan reer galbeedka oo ugu horeeyo Mareykanka, maadaama qaaradda Afrika ay ku loolamayaan dowladooyin fara badan. Maadaama aynu nahay ummadda Soomaaliyeed, dhulkeena waxaa ku dagaalamayo dowlado shisheeye, maadaama aynu ka tirsannahay qaaradda Afrika waa dalalka loogu raadista badan yahay, maadaama uu ku yaalo dhulkeena meel xasaasi ah. Haddaba waa in la fahmaa dhibaatooyinka iyo waxyaabaha soo wajihi karo dalkeena, maadaama ay ku loolamayaan dowladooyinka awood badan dalkeena. Waa in la ogaadaa mustaqbalka uu wajahayo dalkeena, maadaama inagu aynu noqon doono kuwa dalkeena caruur ku dhala, baritorena looga baahan yahay in caruurtoodii ay u sii diyaariyaan mustaqbal wanaagsan, maadaama Alle subxaanahu wa tacaala mustaqbalka uu isagu hayo. Haddana waxaa loo baahan yahay in mar walba loo diyaar garoobo in dalkaada aad difaacatid. Muuqaalkeena maanta aynu kaga hadlaynay xiriirka u dhexeeya qaaradda Afrika iyo China. Muuqaalkeena maanta intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa. Fadlan daawade, haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddaad horey nala joogtayna fadlan muuqaalka like saar oo la wadaag asxaabtaada. Inta aynu ku kulmi doono muuqaalkiisa kaleeto, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.